دكتورة waa maxay dhibaatooyinkay leedahay cuntooyinkan Soomaalida aad ku isticmaasho sida cuntooyinkan fast foodka iyo sidoo kale cuntooyinkan ay ku badan tahay saliidda sida sambuuska kale burka oo kale iyo wixii la halmaala fast foodka ama cuntadan hamburgerkan iyo cuntadan la shiilaya iyo saliidda leh ee la cunayo aynu inagu maanta casriga u haysano ma garanaysaa waxyaalaha adduunka maanta jamciyadda wadnaha u qaabilsan ee ka dhaxaysa waxa ay leedahay ma garanaysaa cuntooyinka Mediterranean-ka cuna yani waxa weeyaan bariga dhexe cuna cuntooyinkiisu waa maxay waxa weeyaan cuntooyinka inagu cuni jirno qamandida iyo karowga iyo fasuuliyada iyo maxaa dhahayay cuntada baalkale iyo kuwaas weeye kuwa saytuunka iyo aynaasad kuwa cuna baa leeyahay adduunkii baa le marka meel kastaba ay mareen ay soo noqdeen inaguna maanta hadda dawladda waaweyn tagto tiraahdo si garow askar lagu yeeriyaa marxalada la oranayna kamid garow meesha garow waaya cuntada ana baasha waan haynaaye cun baasha $20 bix dabadana waa maxay xididkii waa xidhmay dabadana $5 ka qaado iyo furaay $20 Turkiga geeyay $20 marka waa maxay waxyaalaha aynu inagu ka tagnay ee abayaasheen ay cuni jireen iyo inagu aynu u lahayn hidada waxa weeye cuntooyinka hadda waxaan ku iskareen waxaan lama ku isticmaalo ku cunus $20 ku cuni mayso halkasta yaala waa cuntada nadiifada kaas ka cholesterol-ka cunaya waa ka xirbaya ogsoonaadana oo qofku ka lacag badan yahay ka cholesterol badan yahay ka wadnaha xunya ka miskiinka faqeerka garowga cunaya ma xumaada wadniisu waxa ay yimaadeen maqaar gidigood waxaa radiyay adduunka oo dhan badee waxa weeyaan bahal aan u baahnay baad cunaysaa cholesterol baad cunaysaa waxbaad qabanaysaa halkaasay tegaysaa maxaa radiyay dabeetana waa maxay waxa weeyaan operation sameeyay qalay socodsiiyay wadnihii baa xirmaday wadnihii baa daciifay wadnihii baa xirmay sababtoo wax ilaahay baa aan waxyaalo badan oo inagu aan lahaan jirno wanaagsan ay laba dadka intooda badan ma fahansana muhiimadda uu leeyahay socodka ama access-ka qiimihiisa kala duwan maxaa kula talinaysaa muxuu yahay faa'iidada uu leeyahay socodku waxa weeye ka wadnahan ku hagaajiya ee shaqadiisa badiya ee jidhka maxaa dhahayay dhiigga wareegiisa socodsiiya ee dhiigga wareegiisa uu gaadha saa darteed waxaa leeyahay war exercise samee exercise wax kale maaha waa socda weeye yani dhiigga wareeji weeye kana caawi weeye minirkiiba 70 jeer sidaa leh istuuraya caawi weeyaan soco markaad ka dambaysaad socotana jidhkaagu uu kala baxaya wadnahaagu uu kala baxaya xididkaa kala baxaya xitaa haddii aad maxaa dhahayay xididkaagu uu 50% xidhan yahay ama 40% xidhan oo aad socoto waad ka qaadi kartaa waad socodsiin kartaa socod ku socodsiin kartaa dawooyin fara badan oo aynu u haysano in maxaa dhahayay wadnaha furaan oo wadnaha loo qaato ama dhiigkarka ay dejiyaan ogsoonow socodaad socoto iyo cuntadaada ood hagaajisaa 100% ayaa ka badan taa ogsoonaada dawooyin fara badan oo baamishar adduunka waxa weeyaan kabaniyaal baa haysta inta lagu sameeyo hamburger meel kasta McDonald's lagaga furo ayaa xag hoose wax qoran samoostatin qaata tii cholesterol-ka goynaysa qaata halkana waa cun kana kaasiyo xagana waxa laga siinay cholesterol-ki xagana waxa laga iibinaya maxay statin-ki dawladdu waa laga iibinay waxa weeyaan kabaniyaal adduunka u qaabsan waxaan sameeyay marka waa maxay waxa weeyaan inagu Soomaali ahaan waxa weeyaan caadadeennii hore socodkoonnii hore maxaa dhahayay cuntadeennii hore haddii aynu soo celino dhiigkarkuna wuu yaraanaya oo ah ka wadnaha xidha sonkortuna way yaraanaysaa oo ah ka wadnaha xidha sigaarkana haddaanu iska dayno oo kii wadnaha xidhayo isna waa caafimaadnu ka helana haddaynu soconana caafimaadka ka helana marka wadnahan cudurkiisa ku dhacay qaar waa kuwa number 1ku waa kaa ku dhaca maxaa dhahayay xididada yaryar aad arkaysaa maalin kasta halkan aan ku furno
intaas oo kun oo qof ay malaayiin u dhimanaya adduunka malaayiin baa u dhinta maalin kasta hadda waa malaayiin markaliya maalintii kaliya ayaa u dhintay sababta waa maxay waxa weeyaan wadnaha yar ee kuu shaqaynayay ayaa kharibisay marka xididka marka laga soo tago muruq buu leeyahay dadku waa muruq ilaahay ugu talagalay muruqyada hadduu isna cudur ku dhaco muruqii bamgareynayay ee maxaa dhahayay istuurayay ee dhiigga tuurayay dee wuu jilcaya yani istuuri maayo dhiiggiina tuuri maayo mar haddaanu dhiiggu tuurina dhiigga gaadhsiin maayo maskaxdaadii iyo wadnahaagii keliyahaagii waxaagii gaadhsiin maayo marka cudur baa qaadanaya marka kuwaasna way farbadan yihiin oo duriga ka mid ah iminka myocarditis baa la dhahdaa iminka waddankana ku badan yihiin waddankeenana muruqan kan marka laga reebo dee iyagu xirbaya isagu wabada adduunku dhan buu ku badan yahay laakiin kan muruqan isna waa virus baa inta badan u badan iyo wasakh baa u badan inflammatoryga infectionka ayaa u badan kaasna muruqa wadnaha ayuu ku dhacaa kaasna ku badan yahay marka waxa weeyaan haddii muruqaaduna markaa uu xumaado muruqu waa dabcaya markuu dabcana muruqii loogu talagalay inuu tuujiyo oo sidaa yidhaahdo isna tuujin maayo dabeetana cardiomyopathy wax loo yaqaano ama myocarditis wax loo yaqaano ama muruq oo dabcay muruq oo xumaaday oo aan tuuraynin ayuu noqonaya dabeetana dhiiggii baan tuuray qofku neefta ayuu kuula imanaya ama laabta ayaa xanuunaysa oo dhiig baan galeen ayuu kuula imanaya marka muruqaasna haddii uu cudur ku dhaco waxa weeyaan isna maxaa dhacaysa waddankeenna waxaa ku badan oo adduunyada kale laga qaaday waa muruqa qaybiyaasha ku dhaca qaybiyaashu waxa weeyaan afarta qaybiya dhowr qaybiyaan leenahay haddana wadnaha kala qaadno wadnuhu waa caynka markaan kala goyno waa laba sare iyo laba hoose waxaa u dhexeeya kuwa cadcad kuwa cadcadi waa qaybiyayaasha kuwa cadcadi waa qaybiyayaasha yacni xaggii sare ee dhiigu ka imanayay iyo labadii hoose ee dhiigga tuurayay oo iyaguna laba afar u qaybsan laba midig iyo laba bidix wadnuhuna caynkaa weeye halkaasu ku yaala waana sida marka midna dhiigga aynu hano waa dhiigga xun midna aynu waa dhiigga wanaagsan dhiigga xumi waa kii bilaa oxygenka ah ee sama ka yimi maxaa dhahayay jirka ka yimi ee wadnaha imanaya ee dambada sababka tegaya ee bilaa oxygenka ah weeyaan kuwaasu isba dhex gelayaan marka maanta kii yaraa yimi wuu daloolay maanta kii yaraa wuu daloolay maxaa dalooliyey labadaasaa su furan qaybtii midig iyo qaybtii bidix yacni qaybtii oxygenka qaadisay iyo qaybtii aan oxygenka qaadin ayaa isgelaya dabeetana labadii qaybood isgelaya dabeetana mudhowku sii ballaadho keebaa oxygen leh keebaan lahayn qofku waa daalaya waa oxygen baanu gaadhsiinin yani hawadii baan tagayn saa darteed waxa weeyaan kaasina waa gooni laakiin waxa ugu fara badan ee waddankeena laakiin adduunka laga qaaday waa rheumatic heart diseases yacni waa rheumatismka waa qanjidhada wax kale af soomaali waa maxay qanjidhada carruurta ku da-ay weeyaan weegiina midba yimaadana baa la yimaada wadnaha kaga dhacay oo ilmaha yar qanjidhadan aynu xoqadaha naano waxa weeyaan marka ay xumaadaan waxaan ay infectionka yidhahdaan qaadaan ay qaadaan waxay tagaan waxay bakteeriyadii wasaqda samaysay waxa ay tegaysaa dhiigay raacaysaa dabeetana waxay tegaysaa qaybiyayaasha kuwaasay tegaysaa kuwa kala qaybinaya kuwaasoo loogu talagalay inay kala baxaan dhiig uu tago qoladan tago isxidhaan oo dib u baxo yacni way isfurayaan qaladii qaybtii sare labadaas isfurayaan xagga hoosu tegaya way isxidhayaan xag kale u baxaya maskaxdii baa gaarsiinaysa marka waa maxay qaybiyayaasha haddii ay ku dhaco oo marka uu xumaado isfuri waayaan waxa weeyaan dee dhigma tegaya marka qaar baa caadigu waa 4 ilaa 6 sentimitir bay iskala baxaan saasay isu kala baxayaan saasay odhanayaan laakiin markuu qanjidhadu ay ku da'aan way daxalaysanayaan markay daxalaystaan kuwii kala bixi lahaa ee caynkaa noqon lahaa kala bixi maayaan maxay noqonayaan haddaad isra gacantaada ku qabo haddaad markaad qasho aad gacantaada isra kood
وسيدا قصبات مركز تحري ستوسو واحد أركتان تحل سمار إكسلت الوعي وأساسه يعني كلا بح بالكي تشكي راي كلا بحيي قبي كلا بحيي سيدا لهاي ديك السعودية كلا مركز الله ليه مركز وحرمه أساتر هذين ما بكون كعنت هذا بالك كشرس أنا كيف يسوي شرط بدي شل يا سيد تحري سني وأنا قاتل مركز محل muhiimku waxa weeye caruurta 5 jirka 6 jirka ilaa 10 jirka haddii ay xoqadaha aydan ka daweynin ama ay ku xumaadaan waxa ay tegayaan wadnaha dabeetana kuwaas ay xorayaan dabeetana way la ka bedelaan